walagata wada dunido hodba walagata wada laguda wada sida tireerka cawl balaguda karisku waa shabakad isku xiran oo adag tahay inay si sahlan fahmaan dadka caadiga ah waxaana inta badan si fiican u yaqaan dawladaha dadka dabaqadaha sare kooxdan ayaa ku caan baxday jabsiga iyo dhicida xogaha dawladda hay'adaha caalamiga iyo dadka dabaqada sare muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa shabakada Anonymous oo kamid ah shabakadaha ugu halista badan dunida shabakada lagu magacaabo Anonymous ayaa si weyn uga soo shaac baxday sanadkii 2014 kadib markii maaskaraha caanka ku yihiin lagu soo bandhigay mareegta Fonchat oo ah website lagu soo bandhigay boorarka tan iyo markay soo shaac baxday kooxda Anonymous waxay sameeyay jabsiyo aad u badan kuwaas oo saameeyay malaayiin qof kooxdan ayaa weerarkii ugu horeysay dhinaca xogaha ku qaaday kiniisadda Scientology 2008 kiniisadda Scientology ayaa saldhig u ah koox diimeed aaminsan diin khiyaaliya oo iyagu ay samaysteen kooxdan oo ka madax bannaan masiixiyadda waxay aaminsan yihiin dunida iyo dadka ku noolba ay dabar go'i doonaan ayna samaysan duni cusub oo ay ku noolyihiin dadka haysta diinta Scientology-ga kooxdan khuraafaadlayaasha waxay taabacsan dad badan oo ku nool dunida bartamihii 2008 kooxdan diimeedkan ayaa dalka Mareykanka ka bilaabay dhaqamo aad u fool xun oo ugu horeysa faraxanaynta carruurta kadibna waxaa arrinkaas soo farageliyay kooxda Anonymous waxayna jabseen dhammaan kombiyuutarradii waxayna kala baxeen macluumaad fara badan balse ma faafin marka laga reebo hal muuqaalkan ay kooxdu sii daysay ayaa ahaa nin jiraya oo ka hadlaya diinta Scientology-ga isagoo leh waan aaminsanahay diinta Scientology-ga waxay ballan qaadeen nolol cusub kadib dabargo'a dunida muuqaalkaasi ayaa baraha bulshada qabsaday fadeexadna ku noqday koox haysata diinta khuraafaadka kadib waxaana isfaafiyeen xogihii kale ay ka jabsadeen sanadkii 2015 Anonymous sanadkii 2015 Anonymous ayaa u dhacay xogta koox lagu magacaabo Ku-Klux Klan oo loo soo gaabiyo KK kuwaas oo caan ka ah dalka Mareykanka waxayna aaminsanayeen sarreynta cadaanka waa koox cunsuriyiin ah oo aaminsan in nolol u sugnaayo dadka madowga ee ku nool dalka Mareykanka Anonymous ayaa horaantii bishii November 2015 soo bandhigtay akoon xubnood oo ka tirsan kooxda cunsuriyiinta iyo boqolaal sir qorsheed oo ay lahaayeen markaasi sirahaasi soo ifbaxeen waxaa bishii November 2015 waxay isqabsadeen rabshado iyo mudaharad laga soo horjeeday kooxda cunsuriyiinta sidoo kale waxaa ku jiray xubnaha ka tirsanaa kooxda banaanka la keenay farshaxanaysta caan ah oo dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Ben Carson ayaa markii la ogaaday inuu kooxda ku jiro waxaa hoos u dhacay mihnadiisii waxaanu waayay cid ka iibsatay sawir gacmeedyada sanadkii 2010 kooxda Anonymous waxay duulaan ku qaaday xarunta ugu weyn ee shirkadda Bible ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka duulaankan ay ku qaaday Bible ayaa sababay hawlgab ku yimid adeega shirkadda Bible gaar ahaan adeega fiisikarka iyo mastercard-ka waxaana ka markii dambe soo farageliyay fayda Mareykanka waxaana duulaanka loo qabtay in ka badan 40 ruux oo laga shakisan yahay kululaashan arrinkaasi sanadkii 2012 kooxda Anonymous ayaa jabsatay 495 website oo leedahay dawladda Shiinuhu waxay arrinkaasi Anonymous ku sifaysay in argoosi u tahay dad mudaharaadaya oo Shiinuhu ay si raxan darraha ula dhaqmeen bishii November 2012 kooxda Anonymous ayaa la wareegtay boqolaal website oo leedahay dalka Israa'iil iyagoo jawaab uga dhigay weerar Yuhuuddu ku qaaday Mareykanka Gaza 2013 Anonymous ayaa mar kale ugu hanjabay duulaan kale oo dhanka internetka si ay ugu argoosaan ficilada raqdarrada ay ka geystaan dalka Falastiin shabakada ayaa intii ay jirtay waxay weerar ku qaaday in ka badan 1 milyan oo akoon kuwaas oo ay leeyihiin dawlado hay'ado caalami iyo dad caani waxaana kamid ah dawladaha ay weerarka ku qaaday dawladda Mareykanka Ingiriiska Faransiiska Shiinaha iyo gumaystaha Israa'iil walagata wada dunido hodba walagata wada laguda wada sida tireerka cawl balaguda